Puntland inta Soomaali wax u hagaagayso waa wadaysaa waa ag istaagaysaa waa ka shaqaynaysaa waa xiiqaysaa waa wadaysaa inta Soomaali wax u hagaagayaan danteedaan ku jidhaa asaaskii Soomaaliyana waa ogtihiin inaga budriga u ahayn hadda ka hor ninka gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri markaan Jowhar joognay $200,000 oo miisaaniyad Puntland oo ka soo diro baa dalka waxay u ahayd miisaaniyad fil Soomaaliya waa ka warhaysaan ragii ku dhintay waa ka warhaysaan kulluhum inaga mas'uulka ahayn inaga wadna inta waxaan raadinaynay Soomaali laakiin hal qodob marna uma ayna wadin mar labaad inaan SDF ku noqono mar labaad inaan kulmis ku noqono mar labaad inaan buura gallo mar labaad in la diriro marna kama shaqeynayn mar walba waxaan ka shaqeynaynay ummadii Soomaaliyeed oo israbta oo kala degan oo wada degan oo wax kala leh inta baan ka shaqeynaynay haddana iyadii baa waxa rabaa dadkeenu inay ku wacyi gashanaadaan dawladuna ka shaqeynayso siyaasadda wixii dawladda loo xisaaray wixii ka qaldama xaq bay u leeyihiin nabadoonnada isimada waxgaradku inay u yeeraan dhahanin halkaas saas weeye saa ka bedela laakiin hal qodob waa geedka go'an waxaan ku heshiinay raggeena halkaan fadhiyay aabayaasheen dawlad federaal oo Soomaaliya inaynu wax kula wadaagno kaliya taas waa geedka go'an maanta intaan isu nimaadno dawlad federaal ma rabnee dawlad kaliya taliya iyo kaliyeed aan aadno inoo socon mayso sharcigiisii dastuurkeedii meel baynu dhiganay qodobka waxaan rabnaa marka dadka in la wacyi geliyo Soomaalinimada aad baan u jecelahay inaga reer Puntland waa ka warhaysaan markii hore xitaa xorriyadda markii la fiiriyay ragii ugu horeeyay Israel waxa aan reer Puntland baa laakiin Soomaalinimada aan jecelahay Soomaalinimo miir qabtaa la rabaa inay noqoto Soomaalinimo inaga aan waxaan ka biinayn baa la rabaa inagu inaan wax biino ma rabno annagu markaan dhahno war dawlad federaal oo la wadaagaan rabnaa dambi ma aanan gelin qodobka marka waxa rabaa siyaasadana inaynu wixii talaana aan ka wadaagno waxa aan ka shaqeynaynaa halka qodob kaliya uu yahay hal maalintaynu isu nimi kama aynaan oran aan goosanno waad ogtiin dastuurka Puntland waxa ku jira qodob sheegaya haddii waqtigu dheeraado waxyaabo badan oo ay naftooda ama dalkoodii dadkooda uga baqaan Puntland ay timaado qodob inoo saamaxaya inaynu inta Soomaali lagu qanacsan yahay ay imaanayso qodob inoo saamaxaya inaynu go'aan qaadanaa jira weli qodobka ma ayna practice karayn inta aynu quusanaynana mar practice karaynayno laakiin markay noqoto in qofku indhihiisa uu ka qarsado boor ka qarsado meel cidlaana ay soo istaagto adigu waxba haysta waxaaga ilaashanaysaa taas waa geed go'an waxba ilaashanaysaa waxaaga ilaashanaysaa qodobka marka waxa weeye xogaha ugu muhiimsan oo hadda aan hayna waxa weeye dhinaca amnigana waa kala hadlay dhinaca siyaasadana rajo badan baa la qabaa Soomaalidu dabcad bay leedahay ha isku adkaato ha kala kacdo marka u dambaysta waa isu timaadaa waana heshiisa sideedaba waan rajaynaynaa quusan mayno in ay heshiinayso Soomaaliya waa rajaynaynaa in la helo dawlad heshiis lagu yahay ma xigmo ku jira hadda hadii 4-5 intay meel galaan dawlad dhistaan Ali Mahdi iyo Aydiid iyo kuwii soodarayaal iyo noocaas Soomaali maanta ma gaari kardo Soomaali waxa rabaa waxay heshiis ku wada tahay oo ku qanacsan tahay dadka qayb baa waxay dhaliilaan reer Puntland waxay dhahaan reer Puntland ba adag reer Puntland hal qodob bay ku adag yihiin waana qodobka idinku dawladda ka dhisateen tiraahdeen sidaas aan rabnaa waa qodobka federaalka dastuurkaas federaalka in la ilaaliyo inaan wax kala yeelano qodobka wixii aan ahayn oo tanaasula Soomaali oo sameynayna qofka kursiga ku soo baxaya nama khuseeyo qofku doonahaado waa qofka ummadda Soomaaliyeed doorato oo ay ku qanacsan tahay laakiin qodobka reer Puntland ku adag yihiin oo hadda wafdiga jooga ay ku adag yihiin oo inteena halka joogna ku adag yihiin waa in Soomaali waxna wadaagtaa waxna kala leedahay qodobkaas gorgortan ma geliyo waxaan kaloo la rabin dawladdii Maxamed Siyaad Barre xilligeedii karaymo badan baa soo dhacay dambiyo badan baa soo dhacay dad badan baa la laayay dadkii laayay Soomaali waxay ku dhex galeen qabiil inaga waa ku jiraan qoyigaas hadda le waa goosanay waa ku jiraan madax bay u soo noqdeen kuwaas waa ku jiraan qolo walba ku jiraan qabiil baa lagu daayay noociisaasa haddii waagi la ilaaway in mar labaad noocii la bilaabo oo dadkii waaga fidnooyin ka shaqayn jiray ay fidnadii bilaabaan oo dib u noqdaan oo wixii xusuustaan wixii laga galay dagaalka oo halganka laga galay xusuustaan dib u noqdaan waxay noqonayaan marakan in la yiraahdo ninkaas waaga dambigaas u galay waa la calaamadinaya dambigaas u galay in la yiraahdo waa la calaamadinaya anaga marka waxaan rabnaa odayaalow
waxa aan wadno waa waxaan isla ognahay waxa aan ku qaldannahay waa naqabanaysaan haddii Puntland ay ku heshiisay in xamar dawlad kaligeeda la aado hadday ku heshiisay oo annagu aan diidnay waa qaldannahay waa naqabanaysaan haddaan ku heshiinay aan nagaano maalin waxaan ka hadlay baran waxaanay baran oo barwaaqa ah oo la joogo afgooyana barwaaqa tahay la joogo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay intaasaan rabnaa mar walba waa qaylina saasaan dhahnaa yaa eedda marka leh annaga xilligii hugunku waa aan la qaadi jiray iyo hayaankii waa ka soo baxnay Soomaali maanta uma baahan inaga iska daa Afrika diiday markan kale talsinimo hugunku waa meeshayna dhigtay baan garanayna dhulka marnay baan garanayna annaga waxaan rabnaa wadankii Soomaaliya oo walaal ah oo dawlad federaal ah oo qolana wax leedahay waxna la wadaago hadda waxyaabaha noogu daran baa idin sheegaya oo aynaan helin ciidamaan dhisaynaa waxaan la diriraynaa argagixiso waad ogtihiin ciidamada ay internationalku inoo keeneen oo in gaalada lagula diro nimanka la keenay kulli xamar bay joogaan wax alla wixii hub iyo dhaqaale lagu bixinayo kulli xamar bay joogaan hal maalin dawladda federaalka kama aan helin support kama aan helin canshuurta la idinka qaado oo la ururiyo baa ciidamada lagu dhisay hubka loogu raadiyaa rasaasta loogu raadiyaa raashinka loogu raadiyaa idinka ku mahad shaqadii dawladda federaalka laga rabay shacabka reer Puntland ba qabta idinka ku mahadsan idinka canshuurta bixiya idinka isku waani canshuurtana bixiya idinka mararka qaybta canshuur la'aan wax aan ahayn oo canshuurta ahayn ku bixiya difaaca dalka meeshii laga rabay dawladda dhexeena bixiso waxaan marka rabnaa odayaalow gobolada kale aan tagnay saasan uga hadlaynay annaga reer Puntland waxa aan rabno waa dariiq la yaqaan oo jeexan oo halkaas ah dariiqa ka leexan mayno ama luuqa laga soo galo ama dhinaca laga soo galo kaasaan u jeednaa wixii marka dariiqa aan u soconno aan ahayn oo aragtaan oo wixii aan ku heshiinay aan ahayn waa fadhiyaan ragii Puntland dhisay dastuurkeeda ragii wax ka qoray baa joogay aan hayna heshiis baan ku nahay waxa tiraadaan waxaan anagu raali ka mid nuguma matashaan saasa dhahaysaan hadday tahay waxa aan wadno wixii aynu heshiiska ku ahayn waxa la rabaa in garbaha laga istaago la wada difaaco dadka la wacyi geliyo ciyaalka iyo haweenka la hadlo dadka Soomaali waa la wada yahay cidiidaysa ma jiro laakiin Soomaali xamar degan iyo Soomaali garow degan iyo Soomaali dhuusamareeb degan hadda anaga halkaana marnay dhuusamareeb iyo waxaan soconnay dhulka waxaan soconnay boosaasan ka soo baxay boosaaso ilaa dhuusamareeb baan socday dawladda federaalnimada ah iyo walaalnimada iyo heshiiska inaga galmudug ka dhaxeeyo weey magaalo walba waa fariisanayna shaaban ka cabaynay maxaa tihiin xagee baa socotaa midna lama oran magaalada aan arkay oo ah Cadaado say u dhisantay waa yaabaysa dawladda Soomaaliya oo xamar waagay ahayd ma dhisanteen dhuusamareeb baan sii marnay Gurceel baan tagnay matabaan ma nagaan laakiin ilaa Gurceel baan tagnay say u dhisan yihiin magaalooyinkaas waa yaabaysa ilaa Boosaaso waxaan rabnaa marka magaalooyinkaas inay saa u dhismaaneen waxaan rabnaa inaan baasaboor xamar laga doonan waxaan rabnaa hal qof inuusan talin hal qof hadduu taliyo ciidamadu u talinaya ciidamada hadduu taliyo ciidamada dadka la yala dhahay sida hadda dhacday hal qof hadduu taliyo aniga kaligayba ay yiraahdo oo ay timaado dawlad kaligiisan hadday timaado ciidamadu xukumaya ciidamada hadduu xukumana nabaday weey wixii dalka burburiye weey waa adduunka maanta waxa adduunka laga eliminate gareeyay wax la yiraahdo ciidan caburiskiis waa laga eliminate gareeyay runtii waa laga eliminate gareeyay amniga qaranka wixii aan wax u dhimayn oo ah in la diro nimanka nabadiidka wixii aan ahayn waa laga tirtiray inagana sidoo kale la rabaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wixii su'aalay isweydiin iyo idinka warkiina waa qaadanaynaa hadafkeenu waxa weeye Puntland oo mid ah Puntland oo cadow iska difaacda Puntland oo Soomaaliya raadisa kuna raadisa wixii heshiiska aan ku ahayn oo aynu ku balannay aad iyo aad baa mahadsan